halkan haddaan taaganahay wax gargaar bini'aadanimo ah ee halkan soo gaaray sida dadkaan u soo barakacay waxaa ka jira ciidamada admis ama frontline state ama haddii lagu sii noqdo dowladda Jabuuti iyo dowladda Ethiopia ayaa biyadhaamin u sameeyey dadka wada arkaysaan fuustooyinku halka ay yaalaan ayaa biyadhaamin u sameeyey waxayna noo sheegeen inay kordhinayaan biyadhaaminta ay sii kordhinayaan magaalada Beledweynena madaxweyne shaqada indhahaagaba ku aragtay amaan xodogaal ka nahay magaalada gudaheeda waa 10% waxa ku haray 9% waa laga soo baxay magaalada gudaheeda waxaana waxay u baxeen dhinacaas iyo ceelgaal ilaa Jaweel ilaa meelaha fog qaarna waxay u baxeen dhinaca iyo Haarcaday qaarna waxay u soo baxeen dhankan hadda aan joogno ceel jaalle ilaa Xujuub buuraha ayaa la soo aaday meeshii bannaan xaaladda magaalada Beledweyne oo xaqiiqa waqtiyadan dambe caadaysatay markii roob yimaadaba in fatahaadii timaado awal waxaanu arki jirnay 10kii sannadood in mar fatahaadu timaado amaba 20 sanaba baxsaasay ahaan jirtay aniga waxay ugu horreysay fatahaad halkan timaada intan xasuusto 81kii ayaa magaaladan fatahaad weliba aan isleeyahay tawaa ka xoog badneed ayaa ka dhacday the population inta waa ka yaraa ismayaasha magaalada intan waa ka yaraayeen marin biyoodaduna way furnaayeen dowladdii dhexe ee militariga ee uu hogaaminayay jenaraal maxamed siyaad barre allah u naxariistee ayaa markaa dalka ka jirtay anugu ciidamadii fatiga loo keenaan ka mid ahaa oo dadka gurmadka u samaynayay hadda waxaa dhacday in roobkii da'aba la cararo de bannaanka haddii la tagana haraadaa loo dhimanaya oo biyola'aan baa jirta inahaasaa ka jirta magaalada Beledweyne de waxaa loo baahan yahay gacan bini'aadan dad ma deeqdo oo allah dadka deeqa laakiin haddana waxaa loo baahan yahay waxaa ka muuqanaysa xaalad bini'aadanimo ayaa halka ka soo socota haddaan gurmad loo helin waxaan soo jeedinayaa mudane madaxweyne in hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolkan iyo kuwa kale ee deeqaha bixiyaba dadkani inay gurmad u baahan yihiin degdeg ah ka dawlad ahaan wixii aan uga qaybgelaynana inaan gacan ka geysano waajib muqadas ayay nagu tahay ma ahan dhibaataan maanta hadal ku soo koobi karno ummadda iyadoo guryaheedii joogto labada fasal ee la soo dhaafana biyaha waa la maareeyay isla biyihii waa la maaray karayaa ayaa habeen madow 4 gaar biyo ka soo galeen dadku waxay la soo baxeen naftooda iyo ilmihii ay kala soo baxeen hadday tahay wixii ay ku noolaayeen agab ahay iyo hadday tahay wixii raashin ay ku noolaayeen guud ahaan biyihii daadkii yaa qaaday naftooda ay la soo baxeen bannaanka ayay tuuran yihiin maalintiina qorraxda arkayso ayaa ku socoto habeenkiina qaboobaa ku socdo lagana yaabay xilli roobaa lagu jiraa in roob ku da'o waad dareemi kartaa xanuunka ay leedahay hooyo cunug muluqa haysato ee geed hoostiis qorraxna kula dhacayso roobna kula daaya xanuunka ay leedahay waxay siisana aan haynin cid kasta gacan ka geysan karto waxaan ugu baaqaynaa xaaladda ka jirto magaalada Beledweyne waa xaalad adag cid kasta gacan ka geysan kartaa ka geysata ayaan leenahay hadday tahay cid kasta awoodi karto ee ilaahay gacanteeda oo wax geliyo dadka muxsiniinta ah iyo hadday tahay dawladda dhaxana si gaar ah ayaan ugu baaqaynaa inay arrinta ka taagan xaaladda ka taagan maanta magaalada Beledweyne ay si gooniya iyo il gaar ay ku fiiriyaan xaalad adaga ka jirto hadday biyo tahay waad u jeedin ciidamada admis runta waa ugu mahad celinayaa dadaalka ay bilaabeen dadkii oo bannaankan tuuranay biyo dhaamin u bilaabeen
waxay ka gaari karaan boqolkii laba ma dhamo oo afarta gaar ayaa meesha qalalanba dadkii ku qaxay meel ay kala geey karaan ma jiraan waa wax kooban biyahay keenan haddana waxay yiraahdeen bal intaan ku diri karnaa ku sii dareynaa guud ahaan cid kasta ee gacan ka geysan karto hadday tahay hoygii la geli lahay ee qabowga iyo qoraxda laga geli lahay iyo hadday tahay wixii la cuni lahay iyo hadday tahay daawo guud ahaan waxay haystaa dadkan ma leh cudurkuna waa ka dhalan kariyaa wax kasta ee maaragtay waxa isku daatay ama biyaha ay isku wada fureen guud ahaan boosaneerada magaalada ku yimid daadadkii isku wada furay dadkeena way ku dhex socdaan oo way ku dhex qaxu hayaan runtii xaaladda beledweyne ka taagan maanta waxaan dhihi karnaa waa xaalad bini aadan mid ugu adkeed codeer waxaan ku leenahay cid kasta ee gacan ka geysan karto xaaladda beledweyne ka taagan gacan ka geysato insha Allah anaguna isteed ahaan tabartayna waxay taan qaban doonaa haddii la raalli ka noqdo hadday tahay dadka sidii lagu soo bixi lahaay oo bannaanka iyo meelaha qallalan lagu keeni lahaay iyo hadday tahay wixii aan ka gaarno oo gargaar aan ka geysan karno gacan kasta oo ka geysan karno ayaan ka geysan doonaa naftayna waayay waxba ka hagarsamo doono laakiin waxaan leenahay cid kasta awoodo gacan ka geysata ayaan leenahay xaalad adag ayaa ka jirto aad iyo aad u maasantiin ummadana ku nool Hirshabeellana waxaan leeyahay leesu gurmado qof waliba waxay awoodo xaaladaha ka jirto magaalada beledweyne iyo meel kasta oo biyo ka fakadaanba dhibka ka imaan karo hal lagu baraarugsanaado hana leesu gurmado intaas ayaan leenahay dadka hantidoodii ay biyo la tagaan waxaan leenahay bedel khayr Allah siiyo ugu bedelan leenahay runtii xaaladda ka jirto aad ay noo xanuujinaysaa wax kasto oo qaban karnana waa qaban doonaa cid kasto gacan ka geysan kartana waa soo dhaweynaynaa wixii ay keentana waa la fududay doonaa haddii la raalli ka noqdo aad iyo aad u